ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقيبتي سقالات وكمد قيبيه أنقور كوهد لي وانا قيبتي سدحات قيبها اسكمده وان رجع قردون كان كلها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه مسلم. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام أيضا: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة، رواه أحمد. قيبتي هوري وحان كتابتي وان كهد لي معناها اللهم استعان. وحان كهد لي قورك نعمة إنو يهي إلهي نسيي iyo dhalinyarada oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku booriyay inay guursadaan, isla markaana waxa uu dawo u yahay nabigu uu noo cadeeyay calayhi salaatu wasalaam. inta markaad ogaatid oo aad ku dhaqaaqday xagga guurka, gabadhee guursanaysa markaa diinkeena wax badan uu ka hadlay, xabiibkuna wax badan buu noo cadeeyay calayhi salaatu wasalaam. gabadha aad guursanaysid nabigu asaa ka hadlay, isagoo ka hadlaya dadku waxyaabaha ay jecel yihiin oo haweenka ay ku raacaan, sifaadka gabdhaha ay ku xushaan dadku yuu noo sheegay. markaasuu sifadii u qaalisaneedna noo raajixiyey oo noo cadeeyey oo taa raaca uuna yidhi xabiibku calayhi salaatu wasalaam. waxaa laga wariyay inuu yidhi xabiibku calayhi salaatu wasalaam: tunkaxul mar'a liarbacin baa gabadha loo guursadaa. gabadha waxaa lagu dooqdaa oo lagu raacaa oo lagu xushaa 4 qodob. limaalihaa waa maalkeeda marka u horeeya 1. walixasabihaa reer hebelkeeda, walijamaalihaa quruxdeeda, iyo walidiinihaa iyo diinteeda. 4taa qodob yaa gabdhaha raggu ku xushaan oo ay jecel yihiin inay ku xushaan. macnuhu waa sidaa, dadkaa sidaa u badan. hadda 4taa tan u dambaysa oo dadkuna u dibdhigaan oo taa nebigu uu dibdhigay calayhi salaatu wasalaam. walidiiniha maxaa yeele dadka diinkaa ku xulanaya yaa aada u yar. 3da horeysa yaa ummaddu aada ugu dadaalaan, markaasuu diintii xabiibkuna maadaama dib ay u dhigaan buu dib u dhigay isaguna. arrinka kaas u dambeeya yuu ku liibaan ku leeyahay xabiibku calayhi salaatu wasalaam. halkaas yaa mirdhal wanaagsan. إذا حصل المنبت حصل النبات لأربعين يا لو قرصدا قبضيو لمالها مال كذا لو قرصدا مال وحل الراعة معها سيدي سبه ماشا المقور بها مسوى مشروع قرعسي يهولو يا مردل عقير لقد دوني معها. هل كان لتسكنوا إليها بالربا مودة والرحمة بالربا نقلان بالربا كمان مركز قرق سوق شي تكون نسيسة يا لو باهيه. هذا الناقل عقل هذا صفات كليته ولا قاعد كويسين دين أنا كل دورنين
oo aad lacag ku dooratid hadda lacagtu guriga markaad soo gashid ku nasin mayso ugu hadi naag wanaagsan ku noqon mayso ugu hadi lacagtuna sideedaba waa hooska labadiisa gelin bay oran jireen maalna way imanaysaa maalna way tegaysaa lacagtu dad maraakiib leh oo maraakiibtu markay ka degtay santiba uusan ku harin suuqii weynaa oo noocaas ahaa baa xalay toola gubtay halkaasa nool iyo mood buu u yiilay ninkii bacadlayaashii baa gubtay bakhaaradii baa gubtay xataa kistii uu haystay khasad meeshaas tiilay yay ku jirtay gubatay iyaduna bastay maanta meeluhu wareegayaayo marshabiyadigu fadhiya halkaasuu ka sheekeynaya fadhi kudurka shaxda ciyaarayay yuu maanta dhex galay marka ninkii ku raacay ninkaas gabadhaas ku raacay maalka haddii maalka saa u gubtay ama iyada isaga ku raacday haddii maalku isaga ka gubtay haddii qofkii bani aadamkii iyo dabeecadiisii qayaxnayd unbaa kugu soo haraya ugu hadi oo qurxi ka maqan tahay rahiilnimo ka maqan tahay diin ka maqan tahay ilaa adigu lacag unbaad xulatay lacag waa la xogsadaa lama xusha lacag sideedaba marka lacagta wax laysku hadlayn kara maaha nasasho lacagta keligeed lagu heli maayo walixasabihaa iyadana marka lacagta iska daa ha ku xulanin xasabkana xasab maxaa la yidhaahdaa sharciga xaggiisa asalka waxaa lagu yidhaahdaa asharafu bilaabaa wa bilaqaaribi waaye in dadku isku sharfaan aabbayaashooda awowayaashooda tegay in laisku sharfo iyo kuwa joogaba iyo aqaaribta reerkaasaan ka dhashay aabbihii waa xildhibaan waa caynka ma lacag buu kala sayriyaa iyo wax noocaasa oo aniga ma aabbihii baa anfacay mase iyada anfacaysa aniga halkaana ha laga noqdo waxay yidhaahdeen alxasab xisaab baa laga qaatayo oo xagga tirada laga qaato waay waa sida ummaduhu dhahaan landheere reerkaa faraha badan hadda farabadnaashadu tayo maaha dadku tayadu qof bay gashaa labay gashaa kun bay gashaa say ahaataba dadka taya lagu raaca mooye tiro laguma raaco imisaa tiro leh oo maanta waxba aan ahayn oo kuwa tirada yaraa oo tirada badnaa ay maanta wax yihiin marka guriga markaad geshido gabadha reehebelnima u guursatay hadda reehebelnimadii guriga kugu anfaci mayso litaskunuu ilayha ka heli maysid mawadda waraxma ka heli maysid kuu noqon maysa naag kuu tarbiyeyso awlaadaadii diin kugu tarbiyeyso aabbihii baari u noqda kugu tarbiyeyso noqon mayso bahallay kaaga dhigaysaa markaad la guursatid naag kale la guursatid iyo ubadkii kugu musmaaraysaayo bahalla kaaga dhigaysaa odagaas inkaarta qaba oo aniga iga nixiyey oo naa iga daba keenay oo maxaa laga daba keeni wa shay xalaal u sameeyey halkaasi kula maraysaa iyadina walijamaalihana waa loo raacaayo gabdhaha ragga qaar baa jamaalka raaca jamaalka waa muhiim man idaa nadarta ilayha saradka saasa xabiibka odhanaya alayhi salatu salam gabdhaha taad guursatid oo quruxda badan waa gabadha wanaagsani waa gabadha markaad xaggeeda eegtid sanqaroorka dheer oo afka dhuuban oo dhabanada shuban guduudan timaha dhaadheer dhexda yar howlihii noocaas ahaa qaalanshadii uma soomaalida oran jirtay ha ahaato laakiin hadday diin la-aan ay noqoto waa eber o iyadana quruxdeeda ku anfaci mayso naagti quruxdeeda waxaad ku raaxaysan kartaa oo waxay ku anfacaysaa qalbigii kuu dejinaysaa markii qof dhoolla caddayn badan oo wanaagsan oo ninkeeda jecel waduud ah rag jacayl badan markay tahay waayo laakiin xaggaas isla weyni bay gelinaysaa markaa iyadii xadiiska dambaan ku sheegayahay walidiinihaa bay dadku raacaan oo loo guursadaa oo dadku dib bay u dhigaan diinta kuwaas horey ummadda hormariyaan xasabka waxaa ka mid ah reer hebelo markaa geel qaadi jiray iyo dadka dhici jiray iyo dadka layn jiray iyo kuwaas gabayada tirin jiray iyo wax noocaas ah baa lagu faanaya shay dembi ah ama shay maala yacniya dadku way dhacsan yihiin waxaa ku faanfaanaya aad bay u dhacsan yihiin nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati diin tan dibad iyo guda iyo meel kastaba nolol iyo geeri bay kugu anfacaysaa waa daatu diinta gabadha ah waa gabadha diinta baratay barasho kaliya maaha hadde kuwa diinta intay barteen haddana qayax ah oo ninkiiba markaa indhaha u guduudinaya hilfaha u qaadayaad arkaysaa waa diinta ku dhaqantay haddana diin waa ku dhaqan iyo ka run sheegid hadday ka muuqan weyso diinteeda iyadana laa shay bay noqonaysaa markaa afartaa qodob yaa gabdhaha lagu doortaa ragga ku doortaan oo ragga ku raacaan marka maxaa lagu leeyahay
وكل حبيبك عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تاسو النبي نو دوريا ورتاكل ليبان تربت يداك الليبان تبركودي marka taas unbuu nabigu noo xulaya oo taa guursadu leeyahay amar uu nasiinayo oo aan laga leexan karin maaha laakiin sifaadkii buu noo sheegay haweenka lagu xulanayay sifadaasana ugu macquulsan oo adiga adduunya aakhiraba ku anfacaysa maxaa yeelay quraanka iyada u dhigaysa safiinii u akhrinaysa dhaarada baraysa anishkur li wali walidayka waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan يكون بريسا ورابهن كود دالا بار النقطة دعاء كلا هلا هل كاسي الرد تكون مرنيسا مركا يدي هذا هلكا مركا يكون مريسو لما أنت الدنيا آخر بوجوه هدي إلى الدنيا كنا ويكون قبل الأولاد هذه ده تقول أحسن وينغنيان محيي لقبل ولا أحسن بعد كذا الشيء هذا الدنيا ولا أحسن هيد إذا حصل وبته حصل النوات ويدهان دلق مركا عيد سن دلق وكسب بحو dalagaas dalag san buu noqonayaa markaa ubadka marka gabar wanaagsan ehludiin ay dhasho iyaduna ubadka ehludiin bay noqonayaan marka wakaana abuhuma saalihan waliba haduu gaaday gabadhu guru culimo ay ka soo jeedo aabayaasheed iyo awooyaasheed hataa oo ku jiro oo iska badaa wax kale oo iyo khaliif iyo muallim iyo sheekh iyo kala garaaday leeyihiin laakiin maantay hawshi waa hoos bay u dhacdayo شيخ عالمك ومعلم ميرها قار لقل ليه ميرها قار كود معلم بعد نك مفتقها لقل ليه هي أما وداد بي أورانيا وداد ربنا الله قلبك الشيخ وحقرهن أو يهير مرة قبلنا هدي آبايا شيدي أو حتى أكتشري نمك ياسمك ميرها كآخرية حتى أكتشري أو حتى نوه هدي وداما نكاب أما دور الدم أكتشري أما قبلية ترينشري قبل دي سي كان آد وفي عن أقوهد وننك دونية وبتصن ننك دونية هالكاسو كدونية النبي فرتك وفيقي عليه الصلاة والسلام تاس أمبانا أنفايسة إلى هين هو أودا مركا إنه أفرتبا كو كل ميو متكريه كو كل ميو هدي قروح دي دين تأسكو يشيد مالكاس إيرهبلكو وحوين ما أقوهد وحوين ما هدي قروح دي إيه دينتي إيرهبلكي أسكو يشيد haddana lagugu daro tii kale lagugu daro oo wax dhan iyaduna laakiin adiga muhiimada shiishkaaga marka hore iyo shiishkaaga ha ahaado qasdigaaga bidaati diin ha ahaato kuwa kale ilaahay inuu kuu soo raaciyo ay u badan tahay maadaama niyadaadii shayga nabigu xayeysiiyey calayhi salaatu wasalaam aad kula dadaash qalbiga aad siisay marka gabdhaha maantay qaawanaan baa ka badatay daatu diinka aad bay u yaryihiin qaawanaan markay ninka isku xayeysiinaysa meelaha halista bay tusaysaa markaasuu iska soo raacaya ninkii macnaha aan lahayn kan kalese wuxuu odhanayaa tan guur malo waxay maanta haddaan guursado waxayga meelahay dhigdhigaysaa sida gabdhaha maxaa la yidhahdaa tiktoka iyo waxa loo yaqaan wax la mid ah meelaha dhigdhigaya quruxdooda dhigdhigaya oo halista ahaa iyo hadallada aan lagu hadli karin oo foosha xun haddana ku hadlaya arrinkaa in aada looga waantoobo iyo aad ugu sii habboon tahay nimanyo gabdhaha adinkaa dhasheen waalid baad u tihiin walaal baad u tihiin wax baad u tihiin adinka idinku tola yihiin inaad waanisaan oo annaga allaha nagu dirinina dayuus ninka la yidhaahdo janno ma galo yaa jannada albaabkeeda ku qoran baa la yidhi dayuuskaasu waa kee kan dadkiisa xumaha iyo qaawanaanta iyo qurunka uga raaliga ah waa ninkaas baa la yidhi hadda adigoo arkaya iyo xumayn kula xumayn anigu waa horaan daweeyo gabadhaan nin lehe mobile bayaan la siinin oo aniga oran jiri in laga hayo maxaa yeele xarkay goosanaysaa haddii xataa calafkeedii uu yar dib u dhaco laguma jeedo iyo laguma arkee bal quruxdaada meelaha dhigdhig bay isleedahay iyo wadooyinka marmar oo meelaha halista ragga indhaha uga cawir ha ku soo raacaane raggu ma bisadba hilib loogu yeerayo ma noocaasa raggu rabbulallaahi in gabdhuhu is asturaan wax dhaama waa la waaye waqarna fii buyuutikun iyo yudniina calayhina min jalaabiibihina dawo u dhaanta haweenkayaga waa la waaye udkhuluu masaakinakum ilaa aad ka tirahdaan gabdhaha ilaahay lamaydaan heshiin saa sheekh baa ku celcelin jiray raximahullah raxmat alabraar waa runtii waqarna wax uga roon ma jiraan gabdhaha
udkhuluu masaakinakum sidaa ku dhahaya yuu sheekhaas oran jiray inaan qaadano aan ku dhaqanno aad bay u wanaagsan tahay maxaa guryahayaga dhammaantayo gabdhaha ka buuxa in gabdhaha la asturo yaa khayr ku jira kuwaaga iga astur anna kuwayga aan ka asturo saas yaan dhammaantay ku liibaanaynaa oo roob iyo barwaaqiyo dowlad sax ah aan ku helaynaa laa darara walaa diraara laakiin markii gabdhihii iskuuliya jaamaca iyo dibadaha loo dhoofiyo hadda qaawanaan iyo wax kaleeto waxaan ahayn haba sugin markaa waxaan ka digayaa oon boorinayaa markaad gabadha noocaas aad heshid ninka kuu mehelinaya inaad iska hubisid kaasaan boorinaya oo aan kaaga digaya waxaa aada u batay niman waxba isugu aadanayn oo gabadha nikaaxeeda diyaar ma u tahay haa sidaa kuugu mehelinaya waan bixiye ma aqbashay waan kaa qaatay wax noocaasa waxba isugu aadanayn hadda kuwaasu aad bay u dhacsan yihiin maxaa yeelay qabyaalad baa madax ka gashayo ninkaa waxba aan aqoolo koofiyadda u qaato garka ula baxay unbay waxay u leeyihin waa sheekh reerka yaga sheekhooda isagoo jooga annagu shaaq kale dooni mayno hadda waxaa meesha ka dhashay in qaar badan inay reero saxa ay yihiin ismoodaya in ninkaaba meesha uusan ka dhicin xarina uusan jirin hawshee la wado arrinkaasna halaga waantoobo hana la iska ilaaliyo wabilaahi atawfiiq wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma statactu wamaa tawfiiqii ila billah calayhi tawakaltu wailayhi uniib وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون